dadka u kala baratamaya u kala ordaya xoolaha dadweynaha inay qaataan meelaha nafcigu leh u kala yaacaya guyaha ka dhistay magaca ku yeeshay shirkadaha ka samaystay ka noolaaday ku tamishlaynaya waa inay ogaadaan maalinta qiyaamada markay yimaadaan wax badan inay xambaarsanaan doonaan iska cun oo noolow oo tamashle oo guro oo tolka iyo qaraabadaada ka noole laakiin waxaad ogaataa maalinta qiyaamada ayadoo ku saaran ayaa amaama alkhalqi lagu keeni doonaa laguna fadeexayn doonaa ka warrama haddii nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadaaya alcummaali ghuluul dadka shaqaalaha dowladda ah mid hoose mid kor ha noqdo shaqaalaha dowladdu wixii hadiyad ee la siiyo waa khayaano hadiyad madaxweyne hadiyad loo keenay hadiyaddaa inuu qaatayo waa xaaraan laanna hadiyaddan waxaa lagu siiyey waa kursiga kursiguna waa ammaano oo dadkaa iska leh shacabkaa leh ina allaha ya'murukum an tu'addu alamaanaati ilaa ahliha kuraastani waa ammaano ehelkeeduna waa shacabka iyo raciyadda iyagu ma laha ka ku fadhiya ma laha hadiyad baa loo keenay kursigaa keenay markuu bannaanka iska joogay lama siin jirin waa wasiir hadiyadaa loo keenay ma uu laha kursigaa iska leh kursiguna waa ammaano shacabkaa iska leh gobol buu ka taliyaa sidoo kale meel hoosuu joogaa sidoo kale dowladdaa dirsatoo shaquu soo qabanayaa sidoo kale hadaaya alcummaali ghuluul shaqaalaha dowladda wixii hadiyad loogu keenaayey waa ghuluul nooc min alghilli waaye waa khayaana sidaas daraaddeed ka warran hadiyaddii loo keenay hadday khayaano iyo ghuluul noqotay tii asalka ahaydee shaqada uusan ku lahaynee bangiga ku jirtay ee dadweynuhu lahaayee shacabku lahaa ka warran ayadu xaggay taallaa waxaa kaloo nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida bukhaari iyo muslim ku yimid maalintii nebigu khaybar dagaalkii khaybar uu ku furtay ayaa dadkii meesha socday waxaa ka mid ahaa nin addoon ahaa oo nebiga sal alla alay wasalam la siiyey oo u adeegahaya rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh asagoo adeeggii haya ayaa waxaa ku dhacay leeb soo lumay oo baadi ah meeluu ka soo baxay aan la garanaynin ayaa ku habsaday ninkii waa dhintay saxaabadii waxay yidhaahdeen hanii'an lahu biljanna tahniyad waa waxay ugu tahniyadeeyeen inuu jannada gelayo leanna shahaaduu qaatay si iyagu u arkaan ilahay dartii baa loo dilay bay leeyihin markaasaa nabigu wuxu uhi sal alla alay wasalam kallaa maya buu yidhi maya saad moodeen maaha tahniyad janno loogu tahniyadeeyo meesha ma taallo sababtu waxa weeye maradii buu nebigu yuri sal alla alay wasalam uu xoolaha haniimada ah ka qaatay oo ka xaday inta aan la qaybinin maradii iyada ahayd baa korkiisa ku holcaysoo gubanaysa buu nebigu sal alla alay wasalam naar iyo waxay isu beddeshay dab holcaya maradii baa korkiisa ku gubanaysa buu nebigu sal alla alay wasalam idinkuna jannaad ugu tahniyadaynaysaan markay dadkii hadalkaa maqleen rag badanoo waxyaro qaadqaaday baa jirayee ninba wixii buu iska soo celiyey ninbaa wuxuu keenay wax yar oo yacni waxa weeyaan kabta marka la qabo cidhibteeda suunka yarka ah ee mara ee kabta haya indhasha intaasoo kaleeto buu nin keenay markaasaa nebigu wuxuu uhi sal alla alay wasalam waa indhal naar ah mid kalena labuu keenay saasoo kale waa laba naarood buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh warkaasi waa inuu gaadho dadka u kala baratamaya u kala ordaya xoolaha dadweynaha inay qaataan meelaha nafcigu leh u kala yaacaya guyaha ka dhistay magaca ku yeeshay shirkadaha ka samaystay ka noolaaday ku tamishlaynaya waa inay ogaadaan maalinta qiyaamada markay yimaadaan wax badan inay xambaarsanaan doonaan iska cun oo noolow